بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا إلهي بان مهد اسكالي waxaan u mahad celinayaa telefishinka Daljir TV maadaama aan su'aashay arrimaha wadanka maanta ka socda doorashadii oo qariiba oo dhaqaaqila aqalkii sare mooyo kii kale loo dhaqaaqila yahay waxyaabaha soo dhan aan su'aashay waxa weeye adeer dalka riwaayad baa ka socota waxaa jiray hadda ka hor laba filim baa la soo riwaayadaha la soo jilay labadiiba waa socon waayeen midii koobaad waxay ahayd doorashadu say dalka uga dhacdo ciidamada gedaha laga soo saaro muddo badan maamul goboleedada iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaare waa ku murmayeen waa socon weyday haddana waxaa la soo alifay riwaayad la yiraahdo ciidamadii aalatriya loo qaaday dagaalka Itoobiya ku baabeen islaama lacag la siiyo meelaha ka ooya mudaharaad dhiga warbaahinta loo sii daayo waa socon weyday shan abwaan oo khubura shan dawladood abwaanadood riwaayad ay soo sameeyeen ayaa la keenay riwaayadda marka aktarkeedii waxa laga helay filla Soomaaliya dhexdeeda gurbaankii iyo laxamkiina mucaaradka tumaya maadaama riwaayaddu filla kuwii hore ma gelin filla Soomaaliya laakiin tani waxay gashay halkii dalka looga talinayay aadii faanadeer kolkay gashay riwaayadii tigirkeedii wuxuu ka bilowday $2 milyan haddana $15 milyan buu maraya waa riwaayadda waxaa ka soo qayb galay oo soo alifay Ingiriiska Masar Djibouti Kenya Imaaraadka aadii faan Soomaali ha fahanto riwaayadda magaceeda waxaa la yiraahdaa ikraan cadaalad ha hesho war hadda ikraan inay cadaalad hesho waa rabnaay dalkiisa kin dad badan baa la leynaya dad badan baa baaba'aya danihii dawladda oo dhan baa ragaadaya dawlihii doorashadii baa istaagaysa khilaaf baa dalkii galaya laakiin inay ikraan cadaalad hesho waa rabnaa miyaan dad kale iyo cil kale cadaalad maya ikraan cadaalad hesho فكركن waxaa nagu soo beegay markii aanu aragnay doorashadii oo socoto oo arintan la soo dhaxdhigay doorashadii oo socota ya arintan wadankii la soo dhaxdhigay lama rabo markii in doorasho dhacdo lama rabo dalku inuu hore u socdo kiis waa dhici jiray dambi waa dhacaa kiisaska sanad 2 sano 5 sano yaa la baara dawladda ka dambaysay u sii dhiibtaa laakiin wax jir yudha oo markaaba hal la hela haddana sababtii lagu heli lahaa aan la marin ya oo see cadaalad ku helaysa gabadha marka cadaalad ku helaysa shirki maanta qabsoom lahaa marka uu soo socday ninkii dhan oo xogta hayay oo agaasimihii guud oo nabad sugidda ayaa Djibouti information kaaga tagay oo lagu xidhay oo loo celiyo Turkiga see Djibouti ma keenay inuu haddana cadaalad hal weel gabadhiba u soo socday shirki qaranka maxaa meesh ku celiyo joog ikraan cadaalad hayso hadda afmi uu noqonayaa ayna maanta halkaas igu celiso oo Turkiga tago diyaarad labaad soo qaato inta imaado oo ciidamo kale hadaa ii diyaariso oo mucaarada cadaaladii laftiga helitaankeeda meesha ka maqanay si alla ku yiri maya joog maxaa geeyay ikraan cadaalad hayso saas miyay cadaalad keenaysa joog cadaalad ma saas u taqaaniin ikraan cadaalad hayso waxaan cadaaladda shabaab isku hubsanaysaa dad badan oo dalkan u geeriyooday ilaa hadda cadaalad aan helin joog ikraan cadaalad hayso cadaalad waxa laga heli karaa markii runta la isu sheego oo guddigii qaranka Soomaaliya dhan oo hogaaminay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo wada fariisto ayaa xuquuqdeedii soo baxaysa gabadha meesha ay ku foorartaan ma ra'iisul wasaaraha ma agaasimaha guud nabad sugidda horta warka markuu cadaado oo waaga bari markaas ayay noqonaysaa cadaalad in la helo laakiin cadaalad markii la heli lahaa ninkii Istanbul joogay ayaa Djibouti ku soo degay markuu soo degay waxa tiri
naw kor ha loo celiyo ama ha la xiro meeshii ku noqday wuxuu tagay meeshii la yiraahdo maxay ahayd Ankara hadda kadib iyo diyaarad labaad inuu soo qaato uu imaado shirkaas iyo cadaalad inay degmada hesho darteed ayaad u dagaalamay war cadaalad baan isla aqooniniyo Roma baahna adeer Roma baahna waa khaldanta ikraan cadaalad hesho ikraan cadaalad inay hesho isku madiido dad badan cadaalad u baahan inay helaan dad baa lagu laayay qulweyn dad baa lagu laayay isgooska banaadir dagaal baa ka dhacay dad baa ku dhintay sidoo kale qarxi weyna zoobada ilaa cadaalad ma helaan okay waxa weeye oo hinta urgaga ka weyn ma aha ikraan cadaalad la'aan han noqoto way ikraan ina cadaalad la'aan noqoto ayay rabaan gabadhii ilman ahayd ina ilman oo eelaboorka ka soo baxday qadaadka shamshuuta loogu dhuftay cadaaladeedii meedii hagee ku dhacday wasiirkii amniga oo madaxtooyada galay halka wujuud habad loogu dhuftay aawi cadaaladeedii ninkii toogtay waa joogaan aryaan baa la soo sheegay riwaayad baad dhigaysaa abwaan ma aha cadaalada noocaas cadaalada waxaan u naqaanaa ila agaasimaha guud yimaado gabadha fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuun udurkeeda meesha ku yimid oo dhibaatada ku qabsatay iyo hogaanka ninkii hayay waxa la warsad markaas cadaalada imaan adeer waa mahadsan tahay laakiin ikraan cadaalad hesho cadaalad u baahnaa ikraan cadaalad hesho dadka kale iyo waxa iga jooji warniya waxa la yiri atoor guuyo sagaaro ma oga uubta loo qoday asagoon irdhaysnayn ayuu ooda soo gali abqada guro intuu leeyahay adinka saaraa markaas midkii eeganaya ablay unun ku gooyaay markaas oo anfac ka dhigtaa iyo akal la quutaay Soomaaliduna ujeedada dambiya ma oga eelka soo baxaya marka waxa weeye dadku dhimanaya dadka dheenalaynayo maaratay waxa soo dhan waanu aragnaa laakiin anagu riwaayada aan jilayno waxa la yiraahdaa ikraan cadaalad hesho mid baan ku sheegay nin suufiyaashi Soomaalida hore ahaa oo dariiqooyinka nimanka ugu weynaa ayaa xaafad yimid oo lagu karaameynay ogo gambarkii baa soo daahay nin baa wuxuu yiri halkaaga dhabarka halka idhig halkaas uu ku fariistay mugta hadda ninka waa nin miisaan culays badan leh markuu ku fariistay wuxuu yiraahdaa gambarkii loo ka haye dantaad sheegay waa dantayda inaad iga kacdo inaad iga kacdo bas ayaa dantayda war dantaada waxa dalka inuu burburo cadaalad in la helo ma rabtide cadaalada dhanka u doonisma cadaalada Allah wada ee madaxweynaha iyo agaasimaha guud dalka oo arintaasna og haloo daayay markaas cadaalad adigu muranka jooji ikraan cadaalad hesho bal dhageysta abwaankii Soomaaliyeed dhageysiga waxa ilaan gar wuxuu leeyahay cadaalada meesha ku jirto waa hogaanka bini aadan fiiri inta hadii laga jaro nolol ma laha sida cadaalad ku leeyahay cadaalad ma isku kana weydini ikaan weydini qofka bini aadanka hadii sulka laga jaro cadaalad ma helo waaba dhintay dimo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo nool ayaa la rabaa in laga talaabsado cadaalad meesha imaanayso gabadha cadaaladda meesha laga raadin lahaa madaxweynaha og agaasimaha guud hay'adda mataqaana nabasugida og hal sugu yimaada gudiga qaranka dhan ha fariisto markaas cadaaladda helaysa wabillahi tawfiiq waana ka macnaga ikraan cadaalad hesho ogaa Soomaaliyeed tahay dad badan baa dalka geeriyooday oo siyaaway loo dilay ilaa hadda cadaalad ma helin adigu mar walba ugu soo celinaysa cadaalad waxaan ugu soo celcelinayaa adeer horta magacan waxa ku hoos laaban waxa weeye Soomaaliya hadunto shacabkuna ma fahmin mafad baadidana meelayna jirin hadii loo doono lama soo helo ya saadarteed anigu shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa ninkii loo haystay kiiska in loo diiday dalka inuu soo dago waa la ogyahay waxa loogu diidayna waxa weeye inaan ikraan cadaalad helin riwaayada dalka ka socotay la keenayna waxa weeye ikraan cadaalad hesho shirkii wasiiradu qaban jireen ilaa iyo hadda lama qaban maalinkii la qaban qamiisaha ay qaban jireen toddobaadlaha maxaa loo qaban waa ikraan cadaalad hesho shirkii maanta maxaa sleedahay marka ikraan lama qabsoomayo ikraan cadaalad heshaa socota kow xafiisadii dawladda looma shaqo tago shaqaalihii
hoteelada waa kuwa iska wada shaahaya maxaa dhacay markaad tiraahdo waxa lagu leeyahay igraan cadaalad hesho dadka halkan lagu laayay oo shacabka ah oo ciidamada islaynaya xabadoodu laysay dawladdu kama hadlayso haddii la yiraahdo laga hadlana waxa la leeyahay igraan cadaalad hesho warkana wuxuu ku soo koobmay riwaayada dhan ee maanta dalka taala waa igraan cadaalad hesho sababtaasna waxa keenaya riwaayadihii hore oo jasiiro lagu soo alifaya waa socon waayeen laakiin tan waxa lagu socodsiinaya fil Soomaaliya gashay ya aktarkeedii iyo campaignkeedii iyo waxeedii oo fil Soomaaliya ku jiraan ala kulli xaal waxa weeye marka dalka waxa ka socota riwaayad la yiraahdo riwaayad igraan cadaalad hesho cadaalad inay hesho waa rabnaayeen wadadeedina lama hayo sidee ku helaysaa cadaalad waxay ku helaysaa hay'adaha dambe baarista loo daayo dalkana doorashadiisa lagu dhoo hal la socoto dawladdan haday la bedelo mid dambe imanaysa ya baaraysa haday taasi baari weydo ku guuleyso tan dambe baaraysa kiisku intuu doon u socon kara dadku isleeyihiin dadka siyaawooyin kala duwan bay waa la yahay arrintan taariikh marka eedeedii asalaam madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha cid aad la igraan cadaalad hesho igraan cadaalad hesho